wuxuu iiga sheekeeyey wuxuu yidhi bilaa iqaamana bilaa shaqaana bilaa lacag baana haddana waxaan go'aansaday inaan meeshaas mar dambe baaqi ku noqon ilmihii markay soo kaxeen waan soo kaxayo meeshaan kaan waxaan xusuustaa buu yidhi anoo masjidka xaramka iskaga tukanaya oo sujuudsan yani waxyaalo cajaa'ib ah xataa lacag anoo jeebka laga gelinaya arku yidhi cidna anoon weydiisan anoo sujuudsan lacag jeebka laga gelinaya xataa waa arku yidhi soo socoyo iqaamad buu helay xoogaa yar haddii la joogay cafis iyo waxbaa la helay oo iqaamada la fasaxay oo sacuudiga oo iqaamad furayo ciyaalkii oo dhan iyo xaaskii iqaamad u helay iskooluu ku daray meel xaramka 2 talaabo u jirta shaqo fiican buu ka helay haddana uu ka shaqaystaa oo shaqo aad u fiican buu ka haystaa 5 waqti waxa laga yaabaa inuu xaramka ku tukado waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan آلاف ومئات وي انت إلهي سبحانه وتعالى كبغضي هذا إلهي كبغضه إلهي فرج بكفر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وحي هرنا إلهي وضافي إلهي أجرك لنا وسيني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ويقول إلهي سبحانه وتعالى إلهي أهاجره درتيس أجره درتيس كلي أجره ده إلهي يواد أكتها أدقون بنكوس أجره دراد دا أمه أجره وحكا لتمها دين تيدا يلمها إلان إله بدباديو كليه بانوسو أجره والنفط إذا يلمها يقان بدباديو ترى هذا إلهي وحيري يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعنمو دلك إلهي كهل يابو إلهي سبحانه وتعالى محان إلهي بلانتي سوى من لا أنها يا أخواني محان إلهي وآمن لا أنها حلكو كاسوي حلك لمجره لا حل آخر وحكى لدن ومرة التلد مرة هل كان لقيت لايو هل كان شيء حميس هل كان لقيت لا هل كان ترقيع بالله هذا ترقيع يا دكسي أحد يصبت كان جينا يعني وحبكم الصباح يعني هذا ويديس الشيء وحكوا الصباح ماله قرآن يكون حفظنا يعني مالها waayo isniinta markuu halka ka baxo ayaa laga masaxayaa macallin xasan wuxuu akhrinayay sabti iyo axad oo dhan ka kacwaay banaanka lagu tuuray waxba kama jiraan isniinta subaxdii baa laga masaxayaa isna wax weyn uma haysto wuxuu isaga haystaa shay aabaha la iskaga adeecayo cultural iska aho maaragtay la iska yima sabti iyo axad oo iska waqtiga la iskaga dhumiyo cabaar lagu ciyaaro oo la iskaga tago ma aha qof jiddi oo serious ah inuu wax xifdiyo hadaa soo haysaan wax ku soo xifdiyay waa kunkii xabad way haday badhacdo ma badhacdo yani juz ama wax dhaafa ma u maleynaa inay jiraan sida san ku aragnay madaarista weekend schoolska ama sabti iyo axad la dhigo ma dhaafaan ilmahoodu juz ama ma dhaafaan sida u badan yihiin qaalibkooda sida u badan yihiin saas هذا دافن وعبرته ضيعيه وهذا ويديني سو هاي القران حاجه حفظتها مقارنه ساعد بفكريه هرت سوره حتى كجري ما يقانو اسكا داف wax kale حاجه كجرتا adeer xaga dhigata quraan faas quraanaha سوره موسى ما هذا محوها اساس هذا طبيعي اساس طبيعي marka walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى لكن هذا الآلي سنة لهذا تعليم بطل وحوالين كتوسي هذا وين توسي هذا وحوالين كتوسي وحير بان كتوسي هذه صورة قشو ماشان فيلم كلوقا وان كرو فيلم كوالين كتوسي حوغا سي وحو بران كران أما سي وحو خرسان كران أما سي دين وبران كران وقرآن وبران كران هدي أد سوماليا إسلامتو أي وليدي دنتها يولا ثلاجدو إي ألاب إي حمله وفريجيتيرو إي قرية مارتي سيراميك إي ماله هذا نقول سيراميك أديك أوديك كارين مارتي meelaha kale oo ceramikada leh uga raadi ومارتي قطر يا خليج كي مالها بلنت إلهي سبحانه وتعالى هو أمر كينيو مالها اسكنتو جي يا باكستاني ماليزيا إندونيسيا اسكن نقدان أنت مارت النقل لها يوم وحكلا سوا حوا كصوب بحاي حضارمتي أدي إندونيسيا ماليزيا المسلمين اللي دقلوا حوا كصوب بحاي حوا كصوب بحاي مسلمين بكصوب بحي مركا مال المسلمين أو جي هدي أد مارتي إن جيني سو هدي أد ويدو ضلكاجي هدي أد ويسنا بل وحي سي أكل فدوديهن أكل فدودي لكن سيدان هذا
jira xal maaha asalu allah tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryay inuu muslimiinta iyo ilmahoodaba badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryay ilmihiina iyo idinkaba idin badbaadiyo ilaahay dhammaanteenba naga badbaadiyo fidno gaala iyo fidno kufriyo fidno shirki ilaahay naga badbaadiyo duriyadda ilaahay noo islaaxiyo duriyadeenna iyo duriyadda muslimkaba ilaahay inuu islaaxiyo ilaahay duriyadeenna iyo duriyadda muslimkaba inuu ilaahay islaaxiyo ilaahay kufriga iyo fusuuqa inuu ilaahay nabcaysiiyo iimaanka iyo islaaxana inuu ilaahay jeclaysiiyo اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waa iskuul ka mid ah iskuullada Soomaaliya hadda gobolada oo dhan ku yaala oo waliba system cusub ah oo la yiraahdo dowr qur'aan al-kariim oo waxa weeye madaaris isku jira qur'aanka taxfiid qur'aankii iyo waxbarashadii kale oo caadiga ah iskuulkii kale oo caadiga ah isugu jira oo ardaygu marka koow uu bilaabo dugsiga meesha ka ahaan jirtay dugsi kaligiis inuu dhigto oo dugsiyadii meelaha maaragtay waliba si isaga dacdaraysna in hadda laga dhigay iskuul nidaami ah isla mar ahaantaasna qur'aanku awlawiye leeyahay priority leeyahay oo loogu talagalay ardaygu inuu maalmana u dhigto maadooyinkii caadiga ahaa ee carabiga iyo sayniska iyo xisaabta iyo ingiriishka iyo uu dhigto sidii caadiga ahayd iskuulka laga dhiganayay qur'aankana xoog loo saaro maalmaha kale laga bilaabo subaxdii ilaa galabtii laga bilaabo qur'aanka loo xoog saaro si 2 sano iyo bar 3 sano ugu badnaan ilmaha fahamkiisu iska liito uu ku xifdiyo qur'aanka oo dhan oo kaamil ah maca tajwiid uu ku xifdiyo marka halkan waa dugsi hoose hadda gabadhan iyo wiilashan yaryarka ah iyo adarkaysaan dugsi hoose waaye labiska iyo xijaabka iyo tarbiyada kale hadda maaragtay waa dheer tahay qur'aankiina way ku xifdinayaan waxbarashadii sabuurada waata ku taal xisaabtii waata ku taal xisaaba weeye galaaska shanaad waxay kaga baxayaan ama 6aad ama 4aad isagoo qur'aanka xifdisan ilaa galaaska 4aad galaaska shanaadna dhigtay marka ciidaadi ku wareegi ciidaadigii uu saas ula sii socon dugsiga dhexe iyo dugsiga sare caruurtan qaar intooda badan dibadda qaarkood laga keen oo Yurub iyo Mareykan iyo meelahaas ay ku dhasheen laakiin waalidiintoodu soo celiyeen wadanka bay keeneen madrasadan hadda Muqdisho way laakiin Hargeysa iyo Boosaaso iyo kullu way leeyihiin madaarista saana oo badan kumayal ciyaal dhigta 2000 iyo ziyaado ba qaarkood dhigta Hargeysa mesela madrasa Daarul Qur'aan Kariim ku taala in waa kamida oo jaamacada islaamiga ka soo baxay baa haya waxaan ku bilaawnay buu yiri 10 markii uu horeysay haddana waxay ifsi marayaan 2000 wax ku dhow ilaa 4 farci bay leedahay yani 2 sano quraanka uu xifdin arday iskuulka caadiga ana wadanaya boosaaso sidaas oo kale dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday Sacuudiga iyo meelahaas iba haysa marka waxbarasho saasay u tayo fiican tahay kuwii thanawi ka baxay waxay galayaan dibadda jaamacada ka galayaan ama jaamacada wadanka qaar ka mid ah galayaan oo hadda 12 sii maray maxaa marka ku lumay oo ka maqan meesha waxa uu maqan tawakkulkii iyo tala saarashadii iyo in arrinka inuu u dareeno inuu yahay jiddi inuu yahay arrin ciyaar lagu qimaaro inaanu ahayn inagu hadda waxaynu ku qimaaraynaa nolosha ciyaalka mustaqbalkooda inuu qimaar ku ciyaaraynaa arrin saxana ma arrinkaas
gabadhan yartaa Canada ku dhalatay waalidkeed uu soo kaxeeyay meeshaan uu keenay farta mayan xataa qori karin carabiga ah bidix bay ka bilaabaysay dhinaca midigta markii hore ka qorayeen marka haddana suurad dukhaan bay maraysaa alxamdulilah mudayar bay ku jirtay meesha sanad taqriiban tajwiidka iyo tarbiyada iyo dadkay ku dhex jirtaan waa u jeedaan حتى حروفته iyo makharijta iyo yani luqada carabiga ah iyo qaabka loo qabsanayo waa la yaabay يا إنجليزي ملاسي كل شيء إنجليزي كل شيء هذا هجاد على بريا إيوه هجاد وآخرنا عدكم سو سار لي ثم تبت وآخرنا لكن كان كنجز ها